Audio Jungle. وزارة أمها ويا كسوة البشر هنوصل الكاميرا كجرا بقول كدور ورجيب بيانا والله تعبنا دولة وسيلة دجيل تسيل ما دجيل لها دولة وسيلة دارنا هذا وزارة أمها ويا أنت يا ما سمع مطار oo inaysa oo ka shaqeynaysa sidii ay haweenka uga qayb qaadan lahaayeen maamulka dawladaha hoose oo loo heli lahaa gabdho ka qayb galo golaha deegaanka ee degmooyinka ay ka kooban tahay Jubbaland oo hadda la rabo in maaragtay loo dhiso maamuladii dawladaha hoose ee degmooyinka in aad si mugle oo qayb gashaan olaha kaalinta koowaad bi kaga jirtaa annaga kaga horeyna wasaaradda haweenka hadaan wasaaradda arrimaha gudaha inaad ka soo qayb gashaan oo kaalin mugle ka qaadataan marna waxaanu aad u rajaynaynaa in la helo gabdho maayara in la helo baan rajaynaynaa taa waxaad ku gaari kartaan kow midnimo inaad isku xiraataan haddaad sida rag oo kala yeeshaan oo isjufaysaan ma gaari karaysaan ilaa halkaa maaragtay aad maayaro noqotaan ma aad gaari karaysaan laakiin haddii aad isku xiraataan urur haween ahaataan maaragtay wasaaraddiina kaashataan annaguna aanu idin gacan siino waad gaari kartaan in aad degmo kasta oo la dhisahayo markay aad u haweenka waa lafdhabarta bulshada boqolkiiba waxaan ka nahay 75 ayaanu bulshada ka nahay inta soo hartay caruur iyo rag ah marka saa darteed xuquuqda annaga iskale deegaankan annaga iskale gabdhaha waxaan ognahay meeshii gabadh lagu aadiyo ee waxba ka soo noqonaynin meeshii gabadh loo dhiibo haddii maanta dhaqaalaha gabadha waxay ku fakiri kareen iyo dirac yar inay ka iibsato isla markiiba inay guri jeexdo kuma fakirayso markay guri ku fakirto waa waqti dheer ka bacdi inay guri jeexato annaga marka waxaan rabnaa bulshadeena sidii u soo noolaato burbur badan baa nagu dhacay dhibaato badan baan la kulannay in naloo siiyo haweenka in shaqooyinka ugu muhiimsan loo dhiibaan rabnaa dhaqaalaha in haweenka gacanta loo geliyaan rabnaa xukumayo horta yaa badan in la isweydiiyo waa baahiyaha gaarka ah ay qabaan markaan gaarka ku leeyahay naafo mahaya baahiyaha ay qabaan populationka intaas leeg ee dumarka ah yaa soo ogaan karo xogtaas horta yaa ogaan kara iyadana waa wax meesha ku jiro maamul iyo administration markii la dhaho wuxuu ka yimaadaa qofka waxbarasho dadka waxbartay boqolkiiba imsaa dumar ah oo u baahan inay shaqo qabtaan oo laga faa'iidaysto ayadana meesha ku jirtaa tan kale maxay ahayday ay gabdhaha muhiim ugu tahay in ay wax qabtaan waxaa waaye gabdhuhu waa ka naxariis badan yihiin ragga waa ka naxariis badan yihiin waa ka maamul fiican yihiin markay wax bartaan oo administration ka soo baxaan waa ka maamul fiican yihiin cadaaladda uga dhow yihiin midda kale bulshada waxay ka koobantaa qoyskana wuxuu ka bilowdaa hooyada ama gabar buu ka bilowdaa waxaa weeyaan
bulshadii qoyskii yaa saldhig u ah hooyada u ah waxay garan kartaa baahida jirta ee maanta ee bulshada u baahan tahay kama jawaabi karaan ragga because baahida waxay taabataa waa hooyada ama gabadha waxay taabato ragga laakiin saaka uu soo ambabaxay waxaa laga yaabaa inuu shaqo iska tegay amase uu jarba dheelaayo oo meel fadhiyo laakiin hooyadu waxay og tahay cunugii inuu u baahan yahay waxbarashadaas uu u baahan yahay maxaa la rabaa in la dhammaystiro wuxuu u baahan yahay biyay og tahay inay biyo caafimaad u hesho rabtaa wiilkeeda ama gabadheeda waxay rabtaa inay u hesho waxbarasho bilaash waxay rabtaa inay u hesho nolol iyo dhaqaale inay u heshay rabtaa waxay waa qof iyada dhanba strategic plan ka samaysan hooyada macnaha raasimaalka guriga waayo oo haddii wixii guriga reerka ay haystaan dhaqaalihii xoolihii wixii nafaca gurigii qofkii looga tago ilaalin lahaa oo wixii gacan ku hayn lahaa waayo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibku u yeeshay dowladdii dhexe ee Soomaaliya dadkii ka soo shaqeeyay ka mid noqdo dowladda hoose ahaan waxaan ka soo shaqeeyay xafiiska ana garaafa arkiibiya dhulbixinta xafiisyo badan baan ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ahaa dadkii waayaas jooga shaqeynayay Quraysh Cabdulla markaas mas'uuliyiinta ka mid ahay dowladda hoose noqotay macnaha mas'uul u sareeya degmada Afmadow kadibna qasrada Degsimaaya qabatay waxaan ahayn dadka kaliya loo dhiibanayo 4 xafiis oo dowladda hoose ka mid ah ay gabdhaha gacanta ku hayaan Afmadow oo mas'uuliyiin ka ahaayeen mas'uulka laga sareeyo dowladda hoose gabar bay ahayd waxaan nasiib u yeelanay inaan dhaqaalihii dalka u lahaa xadidno maadaama dhismada Afmadow uu yaraa oo kor laga hakranayay balse aatee gabdhaha wax badan bay ka qabteen dadka waxaa loo qodayaa wara waxaa loo qodayaa ceelal waxaa la falanayaa beero dhaqaale isku toosan oo dadka ay haystaan oo heerka dadka qoyska u haystaan jireen ma jirin in markasta la soo aado magaalo wax loo soo raadsado 3 bilood wadada naga xirnaan jirtay waxaan ahayn dad isku filan oo xoolahooda iyo beerahooda iyo hantidooda ku filan waxaana waxaa sameynaya dowladda hoose ay gabdhaha gacanta ku hayaan deegaanka gabdhaha ay ku hayaan waxay ahaayeen gabdho wax soo bartay waa dadka shaqeynayay waxbarashadooda wax taraysaan ahayn waagaas 1500 oo macna Soomaali ah oo lacag oo inta ka soo qaaday baadiye maalin ka keen xoolo soo cashuura aan qasnad galiye halka dambiga maalin lagu helay inta ay shaqeynayay waliya xoolaha leeyihiin macnaha dowladda hoose maqaan sida darteed kuwa kale way iga sii fiicnaayeen gabdhaha shaqeynayay oo dhaxaadkii horta saasay ku yihiin oo hantidii ay ilaalinayaan qoyskii bay ilaalinayaan markay mas'uuliyiin noqdaan khilaafku way ilaaliyaan oo dadka khilaafka raadiya ma aha sida ragga camal oo dhibaatadooda isku dildila ma aha waxay ilaalinayaan khilaafku way ilaalinayaan dadka nabad bay u soo dabaayaan waxaan ka bixi karnaa caqabad waa markaan nagu gacmaha is qabsano anigu waxaan dhihi lahaa aan iska dayno heblaayo waa reer heblaayo waa walaasheen waxbay noo tari kartaa anigu dhiibana walaashaya xaliimo anigu dhiibana walaashana Maria oo cali anigu dhiibana walaasheen faamaka haddaan isku raacno waxbaan qabsan karnaa gabdha balse haddii la yiraahdo gabadha waa reer gabadha reer bay u socotaa wiilkaas baa reer taagan maxaa ina warkayga taagan asiga raacaya taas waa caqabada kooda naga isku ah ha laga leexdo caqabada noocaas ha loo joosto inaan ka soo baxno guryaha oo gabadheena wax rabto iyo gabadha hamiga leh inaan garab istaagno waa run xalimo waxay tiri nimanka xaafadaha maanta dhan horta ruugayna aniga ruuxay dhanka ruugaya waa la shaqayn jiray xaafada dhagool la yiraahdo gudoomiyaheeda iyo gudoomiyaha wixii gabar kaliya ka dhigaya xaafadaas gudoomiyaha xeel ka sameeyay anigu waa hoos tagay oo laga dhigay go'aan Allah u naxariista faalma ana geelbahay booskeedu mid baa lagu bedelay ilaa hadda oo ka daba tagayna ma yeelayno gabar baa lagu bedelayaa ama walaasha ha noqoto ama gabar ka soo ha noqoto gabar baa lagu bedelayaa waxaa jira nimanka boono ay gabdhaha dhahaan xataa aan iisha ku siiyo isi ma taas ma aqliba taas maya waa diiday boqolkii keen waxba loo dhiibay gabadhii wax dhiibtaa la siiyaa midda wax dhiibay lama siiyo marka arrintaas waa ka soo horjeednaa mana yeeli doono haddaan nahay haweenkii Soomaaliyeed ee degan gobolka Jubbada Hoose degmada Kismaayo ma ka yeelayno ilaa madaxweynaha soconayna naftada igu jirto oo u tagayaan leena arrintaas aan haysato haddana wasaaradda ma ku xaq lahayd baala taagan hana waa caqabada kooban oo ma haysato taas ay dhiban ku dhiibay
ma dhiiri karo baxshi gaajada way haystaa arrintaa ha la ogaado iyo maxay tahay ciyaalka oo maaragtay dhibaataysan waxa u damqada waa haweenka dariska waa la isku ururin laakiin nin warka ma hayo mar walba ninku waxa weeye maxay tahay waa iska maqan yahay waxa weeye haddii oo maaragtay gabdhaha ay xildhibaan noqoto gabdhihii ma kaxaynaysa wiil bay shaqo la raadinaysaa waa in gabdhaha shaqo lala raadiyo waa masaakiin waa ilmadow boqolkiiba 50 baan nahay baa la yidhaahaa marka nimankuna waxay yidhaahaan oo nagu riixaan naacada aan haweenka maxaa ragga iyo ku dhexgeliyay orodoo ka bax oo naga tag gabadhu way ma haysaa dhiirigelin ma haysato waxa weeye haddii qof dumar meesha ugu horeyso waa inay tahay walax ka leexo maxaad saa u leedahay oo dhiirigelisaa malihin marka waxa weeye anigaaba hadda ku day anigan hadda ku day waa maxay tahay waxaad moodaa inaan marti ka ahay meesha gabar Soomaaliyeed baan ahay gabar Jubbaland aan ahay gabar waxaan ahay maxay tahay oo wuxuu soo qabatay marka waxaad hadda aniga imoodaa waa la iiga horeeyay inaan marti ka ahay baan aniga moodaa oo waxbaan ka tirsanaya marka gabdhuhuna waa wada sidaas marka waxaa fiican in maxay tahay kor ka timaado la soo oo marka madaxda laga imaado gabdho ka shaqeeya macnaha daraha gaarka ah ee gabdhaha ayaan samaysan doonaa haddii ilaahay yiraaho caqabada waxa waaye gabdhahana waxa waaye gabdhuhu ma aha ma fahansana in berri caqabada ma fahansana gabdhaha ganacsatada ah ama raggu iska deensadaan guryaha la gataa waxbaa la soo bahalkeeyaa waxaa dhacaysa in hadhow oo loo soo celiyo qofka lacagta ku baxda qarashka qofkan ku baxay in loo soo celiyo qofkii kale weli ma fahansana caqabadaasna way jirtaa gabdhuhu way haysataa inaan baranno waaye ayuuto inaan baranno waaye aan u galno si aan ragga uga adkaano haddii kale waa fadhinaysaa deen ay isu siino inaan gabadha ay soo celin karto in gabadhu kale ay walaashay tahay beri wax ka qaadan karto haddii xabad barfuur noo gada markay gudubto waa wax dhama meel ka soo baxay somaha marka waxaan jeclaan lahaa gabdhuhu waxbarashada kaliya in combyuutar la barto in maxay tahay qalin bug la isku qaato ma ahan waaye aragnimo la dhahaa waaye aragnimo waxaan rabaa waaye aragnimada gabdhaha inay dheeraato waan ku talinayaa gabdhuhu inay fikiraan marka canjeero dubaysa bal fikir ninkaas muxuu kaaga hormare gaari u wataa xafiiskuu joogaa intaa u sabab deen baa lagu gaaraa ayuuta nimanka ayuuta ku jiraan waa qarsoon tahay wixiina ma qarso wixiina sheeshaysan loo baahno deena la qaata waxa lagu ekaysiiyay guriga inay joogto ninkeeda inay u shaqayso ilmaha inay dhasho intaas weeye gabdhaha horta waxa lagu ekeeyay waxa lagu ekeeyay waa dhaqamo soo jireen ah oo ragga Soomaaliyeed ay soo sameeyeen complainka ugu horeeya waa inaan ka bilownaa aabayaasheen oo iyagu markaa siyaasad intooda badan ku jirin laakiin dhaqan baa anaga lagu dhaqahayay dhaqankaasa hoosna loogu dhigay dhaqankaasaan aragtidanaga aan ka muuqanin waxa weeye gabdhihii maanta maxay qaadeen tilaabadeed qaadeen marka aan ka hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan aan ka hadlayo xasan gabdhaha Kismaayo waa soo galeynaa laakiin gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan caqabad haysata weey annagu markaan iskoolaadka dhigan jirnay hadda macna hadda misaadinka hadda anaga markaan iskoolaadka dhigan jirnay Soomaaliya runtii dawladda dhexe gabdhaha way u dadaashay sababtaa waxaan xasuustaa boqolkiiba ugu yaraan 50 ama ka badan inay iskoolaadka markaan ama dugsiga dhexe dhigan jirnay ama dugsiga sare dhigan jirnay inay gabdhuhu u badnaayeen aqoonta gabdhaha leena oo waxbarasho markay noqotana ay ragga ka firfircoonayeen gabdhahaasu civil war markuu ku dhacay waxaa ku dhacay dhibaato waxay noqotay nolosha reerka dhan waxa gacanta ku haya inay gabar noqoto waxay noqotay waxa haday dibad dhooftay Soomaali waxa badbaadiyay ilaahay ka soo Soomaaliya waxa badbaadiyay waa gabar gaaladu waxay la yaabtaa civil war ka dhaceen wadankan 30 iyo dhowrka sano dagaalka ka socday seebu still u badbaaday oo wadan uu u yahay waxaasna gabdhaha Soomaaliya u badan runta markii laga hadlayo taariikhiyan guriga markaan joogo nin baa wuxuu igu yiri laba sheeko idin sheegaya ilaagina anigu ku daray sheekooyin
ninbaa wuxuu yiri xamar ka soo qaxay Kismaayo imaaday 13 cunug iyo naagtiisii iyo isagaa Kismaayo yimid dadkii soo qaxuu ahaa wuxuu yiri hal shilina ma haysano saddexdii markay tahay yaa cunug oo yiri hameynimo cunug ugu yara saddexdii hameynimo waa ka yiri waxaan waa yiri islaantay xagga fiish samada suuxu waagu balku bariyo waxaan lama haysano yiri waa yaabay waan xanaagti marka adigu naftaada ku kalsoon tahay nafta gabadha walaashaana ku kalsoon tahay ee og tahay inay ii sheeg wax ku qabanayso ayaad heli kartaa gabar soo inay gabar naga soo baxdo waayo xafiisyada hadda rag ay joogaan hadaa tagno waxaan rabnaa ciyoom helayno oo yaani dhaqsana looma siinaayo laakiin gabar markay joogto wax walba baahi waa u sheegan karnaa maasha Allah hadda wax walba hadda la sheego wasaaradda haweenka ku dhaganahay wasaaradda haweenka wada tagnaa maxaa yeelay gabadha nooga horeysa meesha gabadha nooga horeyso waa u furfuranahay inaan tagno marka waxaa caqabada koobaad oo hortaagan horta waa taaganahay aniga waa qabiilka halkan halkuna wuxuu noqon karaa inaan qabiilkaas ka gudubno mid kale labaad waxa lagu soo daray barnaamijka hadda maamooyinka iga horeey ka hadleen xildhibaanada federaalka waa run xildhibaanada federaalka Kismaayo xildhibaanaha laga doorto federaal loo dirsaday dhowr jeer baa training u taga xamar gobolada kale ee Soomaaliya waxa ka imaaday gabdho ayagana oo saas sidoo kale matalay oo training loo geeyay meesha xildhibaanadooda oo gabdhaha oo goboladaas laga soo doorto waa u imaanay waxaa la leeyahay caqabadaha haweenka ka haysto siyaasadda ee ka hortaagan caqabadaha ka hortaagan horta midda ugu koowaad waxa weeyaan waxaan ka maqanahay sameynta siyaasadda iyo go'aanka gaarista taasa caqabada koowaad ah caqabada labaadna haweenku ma aha abdheedood waxa loo batay dhanka iyo social media-na waan ka jiifnaa waan leeyahay sidoo kale caqabada kale waxa kale caqabad nagu ah dhaqanka Soomaaliga naftirkiisuna caqabad buu nagu yahay sidoo kale waxa kale caqabad inagu ah inaysan jirin kalsooni ma jirto gabadhii ay kaligeed inay ku soo saarto horta marka hore ay ku ololeyso ay ku durbaantumato waxaan leenahay bal meel aan ku tiirsana aan raadino marka gabdhuhu kalsooni ma qabaan ay kaligood u durbaantuntaan ay u ololeeyaan sidoo kale caqabadaha kale haweenka haysta waxaa ka mid ah dhaqaalaha ayadana caqabad baa ka haysata dhanka guriga ee ka soo kacdayna caqabad baa ka haysato sababtay tahay looma ogola xafiisaha qabow inay fariisato laakiin shamiidada inay qaado yaanyada inay la fariisato wadada hardworkaas shaqadaas aad ka u culus waa maxaa la yiraahdaa waxa la leeyahay waa naag adaga la leeyahay laakiin markay maxaa la yiraahdaa kursigan u soo gurbaantumatay inta soo aado ee isdhaado qabowgaas ka shaqeyso looma ogola waxa la leeyahay naag baa tahay guriga ku jir oo shalay maxaa loo dhiibay guriga ku jir markay dhagaxa iyo shamiidaha qaadaysay yaanyadana wadooyinka ay la fadhisay marka isku soo duuduwa haweenkeena Soomaaliyeed dhamaan anoo kala qaadin caqabadaha jiro gadigood hal waxaa jirta mabda oo looga gudbi karo horta gabadhu inay wax barato nafteeda ay hormariso caqabad walba oo haysta gabadhaas way ka gudubtay ninaan maxaa la yiraahdaa aan control karin dad kale aan dhibi karin waa markaas number 1 baa tahay banaanka u soo baxday khalaas waan salaamayaa musharaxiinta xildhibaanada iyo kulligood iyo gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose iyo dhammaan mansabka aan ku fadhiidina idinku salaamaya magacaygu waa Faadma Cali Aadan waxaan ka socdaa ururada bulshada rayidka marka caqabadaha haysta gabdhaha markii horta inta badneed hadal waa lama bahan beenba markaan ka hadalna caqabadaha gabdhaha haysto horta koow economiga kamid ah dhaqaalihii uu hooseeyaa istaageerid la'aan jirto oo iyaga dhaxdooda istaageerin xagga aqoonta laftirkeeda in badan waxaa jirto aysan ku baraarugsaneen inkastoo hadda waqtigu uu fiican yahay caqabadaha xagga qabiilka caqabada ugu weyn taas waaye waxaa kaloo jirto xagga guurka laftirkiisa gabadha dil guursada in shaqadeeda lagu hor istaaga macquul caqabad ay ku tahay waxaa jirto kale marka xal maxaa u noqon karo xal waxa u noqon karo horta in kalsooni sidii qof kasta gabadha ay isku kalsoonaato in la sameeyo dalada gabdhaha
u ololeeyo sida hadda maamo Marin ay noo tilmaantay in arrintaas tala adkeeyo oo la sameeyo dallada gabdhaha oo meeshii wax naga jiraan maadaama anaga aan fadhiyin meeshii wax lagu qaybinayo ama go'aanada laga gaarayo ma joogno marka inaan ka mid noqono dadka go'aanada gaarayo gudiyada waa in aan ka mid noqono marka halka wuxuu marka meeshii gogosha wax lagu qaybsanayo ay fadhidid waxa baahidaada sheeganaysaa laakiin sida u sheegtay wasaaradii meel kaste ad wasaaradda arrimaha gudaha camal example u jeedaa hal gabar ma socoto wiil la isdawada haddii la dhaho caqabadaha haysta haweenka annaga kulligeen waa wada marqaameynaa sababtoo ah dhibaato badan aan haysato dhaqanka ugu horeysa dhibaatada haysata gabadha waxaan la niyo jabsana gabdhaha Soomaaliyeed ee la niyo jabsan yihiin waxa waaye dhaqanka gabadha markay soo koreysaba maskaxdeeda koo dugsiga markay la geeyo ilmaha dugsiga la geeyo meesha qofka islaamka koo waxa laga bilaabay markay ilmaha soo korayaan dugsi in la geeyo dugsigaas ay caqabada ka bilaabanaysaa oo waxa lagu dhigi gabadhan iyo wiilkan gabadh waa waxay fahmaysaa wiilka iga reebi gabadha reeba koo meesha ka bilaabaysaa waxbarashada haddana markay gabadhi fursad u hesho waxa laga yaabaa in jikadii gabadhi lagu dhibaateeyo oo mar walbana wiilka iyada dharka u dhaqay dharka u feereyso ayadana ay noqoto gabar oo bahalkii muxuu jikada ku jirto waxbarashada meesha ay gabadhi niyad ugu imaanaysaa gabdhaha waxay ugu firfircoonaan mar walba ay soo bixeen waxa weeye niyad qofka marka hore soo koritaanka duniyada ka jabo saaytaay uma dhidhiifoonay tan kala haysata gabdhaha waa guurka waa lagu dhibaateeyaa gabdhaha gabadh markay guursato waxay noqonaysaa gabar Turkaana guursatay gabar nin Soomaaliyeed guursatay oo islaamayna adeerkeeda hadday isku qoostiin hadda waxa loo fiirinayaa jifada hoose oo ninka uu yahay isku jifo ma yihiin waa gursiga reebel aad u wada dhaqaalaha dhibaatada haysata gabdhaha waaye marka waxaan dhihi lahaa si aan dhaqankaas uga soo horjeesano in gabdhihii ay midoobaan aniga aanan dhihin gabar heblaaya taagan maxay iga galay hebel aan u taageeraa sababtoo ah nimanka si ay u heshiiyeen lagu dhibaateynayaan marka caqabada hor taagan gabdhaha Soomaaliyeed waxay tahay haddii ay noqoto inay shaqo raadsadaan haddii ay noqoto inay ka qayb galaan doorashada goleyaasha deegaanka ti kastaba ha ahaato guud ahaan haddii aan isku soo dudubo koow bulshada dhexdeeda caqabad ka haysataa bulshadii oo aan maxaa la dhahay aan caawinaynin marka iyada soo baxdo amaba maanta xafiis u socoto amaba maxay meel kale u socoto amaba ay dhahayso musharaxan ahay war gabar baa tahay ma iska joogtid gurigaaga ilmahaaga iyay kaa dayaanin la dhahayo niyada laga dilaayo tan labaad dadka ragga naga aaminsan haddii aan naqono hildhawaan amaba maxay aan naqono hay'adaha iyo waxaas aan u shaqeyn xafiis aan tagno inaan bixijaarkiiba aan tuurayno naga aaminsan waxayna dhahan gabadhii oo maxay la doorto xijaabkay tuuraysaa tan kale waa guurka haddii oo maxay nin guursato oo kuwa maxay qolo ahayn waxaa lagu leeyahay xil kuma siinayno waxaa ku qabo maxaa la nin reer hebel haweenku anaga noo soo gudbiseen wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leenahay shaqo wadaag waxaan leenahay wada shaqayn haweenkan runtii waxay wasaaradda arrimaha gudaha soo gudbiso ma helaan wax kale ma helaan shirkan quruxda badan ee maanta aan la soo abaabulay danaheena aan uga hadlayno ee aad u malayso inuu aad noo taabanayo aad baan ugu faraxsanahay aniga wasaaraddan waan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay agaasimayaasha meesha fadhiyo inay kan keli ka dhigan ay shirar badan ka dhigaan oo soo dedejiyaan oo si ay u fahmaan gabdhaha say wax uga qayb qaadan lahaayeen barnaamijka si ay u fahmaan wasaan dowladaha hoose uga shaqaynayn sidii aan cashir u qaadano afmadow camal aan cashir u qaadano oo hadda aan helno 27 xubnood aan ka helno xubno badan aan usii diyaar garowno musharaxiintaan ka mid ahay aniga u tartami doono konsolka hadduu leeyahay awoodda la ogolaado waxaan leeyahay inaad ka barataan cashir oo shaqaysaan oo wax barataan oo tababaro sii qaadataan